السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق التمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى waa muncim, isagaa inoo nicmeeyey. nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan: nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa. nicmadda weynina
dad gaara ayaa khaas u tahay. nicmada yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad. ilaahay isagaa ina jirsiiyey, maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman iyo waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiya uu sheegi 30 jir, 40 jir, 50 jir, haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay. horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahayna waad ku socotaa. ilaahay baa ina keenay adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyou ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuurayaa baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri. bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat. arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila. khalqi fara badan oo sameeyena insaankan aan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma bal ka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar, ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadku aada u jeclaa, keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa. marka khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii, jibriil baa u yimida calayhi salaam. yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi. ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nigi buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay khayrkii buu caabuday hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dheh khaliilkayga, ma maalin keliyuu ku yimidaad cunto siini weydee 70 sano sanabkaa uu samaystay caabudaa on weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay. arsaaqadu waa nicmad weeyaan. nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan, caqligaa dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan, nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan. akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun qaliila ma tashkuruun.
hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay inkoo waxba garanayn markaasuu maqal inii yeelay arag buu inii siiyey qalbi buu inii siiyey bashar buu inaga dhigay nicmadaasina waa nicmad cumuumiya nicmadaas dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa mancim waa ilaahay wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey koonka ilaahay baa inii sakhiray cadceedda ilaahay baa soo saaraya amarka ilaahay baa ku soo baxaysa amarka ilahay baa ku dhacaysaa dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey wasamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun fafiruu ila allah samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa aduu aan tawdaan dharaar iyo habeen dayax iyo cadcaad kulayl iyo qabow abaar iyo barwaaqo nabadgelyo iyo cabsi nolol iyo geeri xanuun iyo caafimaad lab iyo dhidig faqiir iyo hani xanuun iyo caafimaad faqri iyo hina cize iyo dilla shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa u aan tawdaan ee fafiruu ila allah xagga eebbaheena u yaaca xagga makhluuqa ha u yaacina hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi ninka shay ka cabsada shayga uu ka baxsadaa uu ka ordaa ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan xaggiisa umaad u baxsan meel kaloo loo baxsanaya ma jirto meel kaloo laysku dhiibayaa ma jirto xaggiisa isku dhiib taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray sakhara lakum maa fi lardi jamiican barigiibuu kuu sakhiray buurihiibuu kuu sakhiray baddiibuu kuu sakhiray hawadiibuu kuu sakhiray kaa'inaadka o dhan buu adiga kuu sakhiray xoolihiibuu kuu sakhiray wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilahay yidhi wa ina lakum fi lancaam nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi shayga caloosheeda ay ku haysato caanahaasoon ka soo dhex saarna baa ilaahay yidhi dhiigiyo uusinta udhexaysaa ka soo saarnaa baa la yidhi caano cad taskhiir xoolihii baa lagu sakhiray cadcadii baa lagu sakhiray habeenkaa lagu sakhiray dharaartaa lagu sakhiray biyahaa lagu sakhiray hawadaa lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaadoon wax kalaba ka shaqaynayn afarta malag ee qur-aanku sheegay jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakulmowt afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan labana ruuxday ku shaqo leeyihiin labana jasadkay ku shaqo leeyihiin jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay haddana malakulmowdna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax inuu bini aadamka ruuxda ka qabto bal insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso khalaqanaa ilaahay isagayna abuuray isagayna jirsiiyey isagaa ilaahay noo nicmeeyey yaa ayuha alinsaan waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa kaama hadhin welibana innii waalinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuq wayushkaru siwaa'ii baa ilahay yidhi anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi war weyn baa naga dhex dhacay akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi wayacbudu hayrii heyrkayna uu caabudayaa anigaa abuuray heyrkayna uu caabudayaa heyrkayna uu rajaynaya heyrkayna uu tala saaranaya heyrkayna uu isku hadlaynaya heyrkayna uu ictimaadaya arzuq wayushkaru siwaa'ii aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi heyrkayna waa ku mahadinaya arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilahay yidhi khayrkayga maalin walba wuu soo degaya addoommahayga sharkoogina anigu isoo fuulayaabaa ilahay yidhi maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaadii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray
أعماش بن آدم ككسو فوليس إلهي حقي صلى الله قاضينا وأعمال إلهي كعري سينيسا انت هذه إلهي عاصنيسا انت هذه إلهي عضيعيسا يما بدن بلدوس حسابي خيري إلى عبادي نازل وشرهم إلي صاعد خير كيجي ودقيا مالي والبا شركوغنا أنو يصوفوا لا بإلهي تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس بالنبي قولي مالين كسو اثنين يا مالين كسو خميسة أعماش أضومها جركوغا كسو بحدا يا إله الله بندقاب رسولك بيدي ها markay adoomadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jalla wa ala u aroonaya atahabbabu ilayhim bi ni'ami wa ana al-ghaniy anhum wa anu ni'meynaya ba ilaahay walibana was jeclaysiinaya anigoo u baahnayn walibana ka kaaftoon ba ilaahay leeyahay wa anu ni'meynayna dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay bi ilaahay uma baahnayn hadana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday wada caabudaan waxbay ma ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxbay kama naaqusayaan yaa cibaadi law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ba ilahi hadith al-qudsi adoomahaygiyo kiini hore kiina dambe jinniya insigiin haddaan noqotaan sida kiini inigu alla kaya badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan ba ilahi leeyahay culimada qaar waxay ku fasiraan waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sida nabi maxamed ilaahay uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis sidoo amarkayga u diido u jabiyay isagoo quwadayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan oo caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وأنا النعمين يا با إلهي سيجي على ذان بس أنا قو حدنا ككافتهم وأبهنين بني آدنك ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي معصيات بيسكوكي نعسين أيان يكو وحوال بانيقا يقباهي بدن باهيدا أنيقا يقبان يا باهيدا بيها باهيدا الرحمة دا أقبان باكوين باهيدا أرزاقات دا أقبان يا يعني باهيدا الرحمة دا أقبان باهيدا الرحمة دا كوين يكو وحوال بيقى باهي بدن أي هذا معصية دي اسكوكي نعسين يان با إلهي من أقبل إلي تائبا ناديته من بعيد مرحبا بالتائبين نك إيسو جيستي إي توبتكينا الدنبيق إنتو قال كسو نغضي إيسو نغضي با إلهي مال دير بانو قد واقع وحاني رادا كوي توبتكينا وإيسو دوادا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلهي قعمه سوب في ديا هبينكي سكوا مالنكي دنبيق كجرة وقد توبت أقبلو مالنكي إلهي قعمه سوب في ديا سكوا هبينكي قف كجرة إلهي وقد توبت أقبلو من أقبل إلي تائبا ناديته من بعيد مرحبا بالتائبين كوا إي توبت كان إيسو نغضا مال ديربان وقد واقع وحاني رادا كوي توبت كان وإيسو لاما إيسو نغضا فمن أدبر عني منهم عاصيا ناديته من قريب أين تذهب ألك رب غيري كوغا إياك كمدا إيه حقا معصيدا كنت لحتقا إيه غير كي عبدا إيه شهوات كسيها ودي سرعة مال يردوبا نقصوا بحرايا وحاكون لنا أين تذهب هالكي تقيسا من ربي أنيقا نحين بالله إن بطش ربك لشديد إن ربك لبالمرساد مديرو كامديرو قريب مجيب جبابردا يا فسقدا يا ظلمدا يا كفردا إلهي وكارغوستا وارغوسنيا مالك قيامها markay dadku soo baxaan buu rasuulku yiri xagga dhawaaq ba ka imanaya xagga ilaahay markaas la oranaya ilaahay wuxuu oranayaa cibaadi adoomahaygiyo min maalinkan in abuuray ilaada adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhan waan maqlaayay waxaad sameeynaysan oo dhan waan u jeeday waan ii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamus waan argoosanaya ba ilaahay oranaya ayna alladhina akalu rizqi wa abadu ghayri markaas ilaahay oranaya mee ku arsaaqadayda cunaya gheerkeena caabudayay كوي دولار كعبودة يا دولار كصلاة وكذا في سماء اللي عبادة السنة بكلية ما هنا ماي حداد قبيل كاجا إسلام نمدي قبيل كاجا وقت هذا كوين هذا عبد القبيل باتي عبد الله متي تعيس عبد الدينار والدرهم بنبي يقولي أدون كالدينار كي الدرهم كعبودة يا خساره هو جيب رسولك يقولي شهوات كاجا حداد عبد الشهوات باتاي
كقبيل جيس أو فعل تمي إسلام نمدي ضاقد كساري قبيل كوب الدشي كاسنا وعبد القبيلة ويان من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه برسول كوري نك قبيل نك عمل جيس ديبو دق مالك قيامها نسبك كذا شهر ودق ما يام برسول كوري هاو فعل تمي رتولك حبكو تري مايان إذ كان يحكو ترين آخره وحبكو تريان إذ كان ينافع وإذا قبيلة دي ومد إني يدل كني بابيسه ما آخره وحكو تري مركز حميد يا جاهل لماذا هسك صارنا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه نك عمل جيسو ديبو ديقول الله هرو نسب جيسو هرو ديق ما يام برسول كويدي صلى الله عليه وسلم نبي جنين باوي مدوري نكا حميد ودقالما ينك ودقالما يبودي شجاعة رجنيما يجلس النمو ينك قبيلة ودقالما يما في سبيل الله جوامع الحكم بالس يا رسولك وحكمت بكو جوابه وحيري نك ودقالما إعلاء كلمة الله كون بالدرتي يا رسولك كوا كلا ودبيل ودنبس أي الدبيل قاضي ويان وحوق مجرام بكريجان تاي marka ilaahay inaka u baahan ayna alladina abadu ghairi ayna alladina akalu rizqi wa abadu ghairi billahi odanaya away ku arsaaqadayda cunay gheerkeena caabudayay aynahum arsaaqada ilaahay buu cunayay nicmada ilaahay buu dhaxda baalanayay ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay away billahi odanaya waa nar goosanaya maanta aniguna marka qofka hadduu macsiyada ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo adduunyada intuu nool yahay waa loo sii ta dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo لا معقب لحكمه أليس الله بعزيز ذو انتقام أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وأرجو صني هي marka cibaadadu ma aha sanab kaliya loo sujuudo ma aha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhawaad caabudo ka dhigan tahay waxa li wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiyo waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afarayta man ittakhadha ilaahu hawa ilaah macnaheedu waa maxay luqada carabiga ilaah waxa la yiri waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaqiis hada hu isma ilaah من أقبل إلي تائبا ناديته من بعيد مرحبا بالتائبين فمن أدبر مني عنهم فمن أدبر عني منهم عاصيا ناديته من قريب أين تذهب ألك رب غيري هل كي تجي بقولنا يا ملك لو تجي سمجرتي فإلهي ومنعم السجاي نو نعمي بشر بو نقدقي عقل بو نسيي علم بو نسيي كون كان يا كائنات كو نو صخري هدف كو أدوية نو كانين إلهي ونو عدي نعمة وين قاركا دتك قاركا اللي ونعمة الإيمان والإسلام إيمانك إسلام نمد ونعمة وين نعمة داسا إلهي مسلمين تكو داقي نعمة داها كلها كسوا هذا اللوردن ونعمة وقت يركو حددين ويان لكن نعمة الإيمان والإسلام ما حددنو بل قفك الدوية إن انتو نولي هاي إلهي أمركي سقاطا إنو لوشي سدين دميسترا لغا هلو الدين تو كشكي سي اللابتي سأي كم وقتو إيمانك إسلام نمد نولوشي سلغا هلو الدوية إن الراحة يعز يشرف آخرنا وحاودا ميسا نولوشي دائم كأبدي قاحيد الدوية دون حقيقة ومحبا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصية الأولين والآخرين ومحي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي إبراهيم عليه السلام يلشي سوحو كيري وبدك يجيو إلهي الدين تاسو إني دورته يينا جشي يجردو نيمن إلا إنكو دين تاي حريقها يستمع هنا حدا ينيت ما دا جشو
ininkoo xadhiggaa haysana waad liibaanteen hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysana khasaara waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankooga way ka baxeen quruumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin waa ka soo baxeen meeshana waa ka layskaga yar cascasiya baawure layska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawaddu lmujrimu low yaftadii yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaana shiba ilahay baa leh fakayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeyay seenad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmadduuna siiye aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad raacdaan miyaanad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaana isku bedeli doonaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid ma aqaano buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim baleg yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii ga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jiraa iyo kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meele u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada waa ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa inaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaa ku darso wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa inaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkana ku nool lahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano
caalamulbarsakh ayaa ka badan caalamka adduunyada. dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan. qolana way ku cadaaban tahay, qolana way ku raaxaysanaysaa, waa loogu janneeyey. alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi. qabrigu laba mid buu noqonayaa, ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa, ama godgodadka naarta ka miduu u noqonaya. sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada ilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto? wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam, qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya. hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa, hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi. zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa, imaam taabici buu ahaa. salaadii subax buu jamcii tujiyey. rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhameeyey suuratu lmudathir buu ku xijisiiyey. markuu marayo faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir. maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilaahay yidhi waa maalin culus, waa maalin culus weeyaan. maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi. aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday. sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay. yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar. markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay. gurigiisii baa la geeyey. 30 maalmood buu xanuunsanaa. xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn. sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman. markaasuu qur-aankiibuu kala furay, waa qabla alfutuur weeyaan. qur-aankiibuu kala furay, markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima. طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa. aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey. sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo. nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas. waxyigiibaa ku soo degay, isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara. kuwii ilaahay nebiga rumeeyow, duulkii ilaahay nebiga rumeeyow, lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi, ee gaajo kala baxsada lama odhan. gaajaa laga soo yaacay, dhibaato keliya laga soo yaacay. 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari layahay. quu anfusakum waahliikum naara. mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta, ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi. waxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta. aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara, markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa. lilma ayuu sii daadiyey, uu ooyey, oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam. yaa muxamed kan hoostaada ku ooyaya waayo? markaasuu yidhi yaa jibriil waa addoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina, aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi. markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikaha fi ljanna. ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaa ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo, cabsadayda lama ooyo. haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badyaabaa ilaahay yidhi. 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa. abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya. allah inaga dhiga kuwaas. fadadkii hore quluubtoodu markuu iftiinku gale nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya, markay 4taa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay. qur-aankay fahmeen, waxyigiibay fahmeen. cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen, abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge. markaasuu wayse soo raaceen, ummu ayman bay u yimaadeen. markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda
ummu ayman way lilmaysay markaasuu cumar abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadha walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkayso dhan beene wax samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa majnuun adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaanay qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين ويان واحد زيادة ما هليس أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يقع عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يقع عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يقع عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يسنه لكن محل لقوا بدادية وحل لقوا بدادية هل كان لقى قادنيا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي نسائر وحيري إن آدنوا ما لنتي أدويدا دمنيسي ما لنتي أدويدا إيمانيسي وحي إذا كنا شيء أدو أويا دتكن أكتا لا فرحسينين عنو قبركو دلنا يو بقاق وقيلي يا يسقو لكن دتكو يفرحسينين فاحفظ لنفسك نفت هذا انت نوشه إلاليو أمرك إلهي كو إلاليو دينت إلهي إلى السؤو إيمانك إلى السؤو سلان مدى إلى السؤو أمرك إلهي حسيدين سمال انت دمان يسو هذا دويد وقتك تهدقو فرحسن دتكو أكتا هذا يكو أويان دتكو والله وضع ننا دويد وحكتك يسقو فرحسن ننا ومستريح ننا ومستراح nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay nina waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waad dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان إن آدم هدي لسيه تك ذهب وصعد بو نبي يقولي كل بعض بو جعلان بو يري هدي كل بعض لسينا قصد حاد بو جعلان بو يري إن آدم أفقي سوحك لما بو حيانه قبري مركا اللي قليه عيدا اللي قرون بو درقابو رسولكو يري الدويد اللي قمت درقو
ma dhargaysid maxaa yeele laguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhamaystirin daar baa jirta lagu dhamaystiray waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhowtonka meelahan aad tirahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaane rashawar oo zaxmada haddaad tiraa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tiraa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waan raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii iyo oradeydii baan u tegayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxadu waa loo noqon doonaa إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسقموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة أبو رسولك يري مركي الجنة ذا قلان أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت لقى بلا بواحد ليده النلل أدي مشد بلهين شباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمد أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالله يا أين الدنيا حديث النبي كشيكي ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلا جنة دسك قليا كوجود درجير بالنبي مالك كشيكي حيوري وانن كسو بحيا جنة بالنبي يقول جنة كسو بحيا غرغورة بوك كسو بحيا الباب كي جنة إلهي بهر إيمانيا إلهي بأورنا يا عبدي أدون كيجيو أرض جنة قلوة تاس الباب كي جنة إيمانيا إني يسيبها لو قد يا جنة إني بحسنتي مركز نقولنا يا رب جنة تك قل يقول تري وين بحدا مالن كده ما هيست مركز ولا أورنا يا ما بحدا أرض نقول قل هذا أو إيمانا يا مر لبعض مر صدحات مركز أفراد إلهي أورنا يا أرض جنة قل أو تك أو قل جنة الدنيا دي يتوبن كيد بالله ده كيلي قاسي الدنيا دي أي مسا توبن كيد وصاحد أرلد ويان أما واحد جنة يا لا الدنيا ما يالين ما يالين الدنيا محا يالا مركاسو أورنا يا أتسخر بي إله ما يقول دال إسا أو تضحك بي مسواد يقول قصل صادق أبو بكر كيه مسكح دي سي كده داعي نرنتاس الدنيا دي يتوبن كيد بالقصية سعو إمام قرطبي كتابه التذكرة وحو كل شيء نينكاسي مدحوينه marka dawlad loo magacaabo kormeer buu sameeyaa dalka oo dhan buu soo maraa gobolada tuulooyinka distrigada meel kasto soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yiri halkan uu ka bilaabayaa jannadiisi halkan uu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu marna mar labaad isha ku qaban maaye safarka wuxuu ka qaadanayaa 1000 sanadood imisa sano 1000 sanadood فياتي وحو إيمانيا الباب كي جنة ويسسوتها حور العين تسيبا كور إيمانيسا تنظر إليه وينظر إليها ابن عباس ويأجي وأجي أجمدو كليها يا قادن يسيبوا دافرت السنة مسلسل عبد الجوك تان النظر فقط تعانقه ويعانقها وكب بوديا ويكسو بوديسا ويسكدغيا والمعانقة قدر 40 سنة ابن عبد الله بن عباس معانقة وكلية وحي سيساني أنا فرت السنة وكلي وصعنا يا مخسيكي عنتدو عيت هلاي بفريسنا يا تضبب بقول صنو عنتدو عنا يا بس مدة أوير عنتدو عنا وتضبب بقول صنو أين الدنيا عيتها يا ديدو حور العين تواكش كيل هنا كله هواينكم ولا فديان بيانكم ولا دقيسنا يا محاضرة حقوقنا وشاقنا عجيب نعمة داسا إلى هيدت كمؤمنين تودياريي يطوف عليه 10,000 خادم بالنبي يقول نكا جنة قال يا دتك جنة قال أقول جغير أقول فقير سن أقول مزل فقير لما ده كره أقول جغير واحد دوشي صدوافة يا ابو النبي يقول طبعا كن أو خادم بدول ضوافة يا خادم كلا أرك مايو خادم كان شراب كي عنتد أوسد كوكلا مسدو
guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbiraad u duulaysaan ad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindha iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku bedelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanazacnaa ma fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa hadday jirhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nuzulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka ilaahay ka mid a alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toole nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyaduu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin layidhaa baabu salaa dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan layidhaa dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa layidhaa dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad layidhaa abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayoo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasulku yidhi abubakarow abubakar keliya ka gali maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oy soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega way adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaisha weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kuumay dhigin
xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryam binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasna waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka baydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayni dhigtay raabica ayaa la weydiiye o lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa la yidhi waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhalla bay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada diintaa inaan adkaysanno oo nicmadda u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaaha xayumaa kunta buu nebigu yihi meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan mu'minka dhabta ma badilmay waxbuu badilaa lama saameeyo waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatul amawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia iyo malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah ixyaa addiin fi lcaalam nashr nicma mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma badilmaya isagaa wax badilaya lama saamaynaya isagaa wax saamaynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daa zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waaldacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay
oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaan u noqonayaa lianna alarda intahat leanna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuu ahaa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayub alansaari ree madiina ayuu ahaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas ree madiina ayuu ahaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashq buu ahaa faras buu ku aasan yahay bilaal ree maku ahaa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconno iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeeni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timid ime aaway dadka yimid dalkan aynahum maanta inta soo galaysa maskiidka ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib yaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagan calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yidhi falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa haadhahada dee bal u ciila niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel ho u baahan hadal wax ma ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libax ku noqday kayntiisuu libax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegay dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajida dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayna waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka xidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culummada iyo masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda faham walaal fa marka allah ina waafajiyo allahna inagu anfaco